dagaalyahanada ugu awoodda badan dunida oo aan dawlad ahayn ayaa lagu sifeeyaa inay yihiin kooxdan Xisballah. Nimankan lagu magacaabo Xisballah waxay 10 jeer ka awood badan yihiin kooxda Xamaas. Waa koox military ah oo loo tababaray sida ugu sareysa. Hubka iyo saanada ciidan ee ciriya dhulba oo ay haystaan waxay ka badan tahay inta dawladaha qaar ay haystaan. Waana koox ma aha ciidan dawladeed. Waxay leeyihiin awood ay ku wiiqi karaan Yuhuudda oo ah in ka badan inta la filayo. Waa dagaalamayaal aan soo jeesan marka la joogo goobta dagaalka. Hogaamiyaha Xisballah ninka lagu magacaabo Sayid Xasan Nasrullah oo tilmaamay tiradoodu iyo ciidanka gaarka ah ee loo yaqaan Special Forces oo ay leeyihiin waxay sii siyaasay cabsida uu ka qabo caalamka. Casarliiq shalay hadal uu jeediyay hogaamiyaha kooxdani waxa uu kaga warramay dagaalkan iyo mowqifka ay ka qaadanayaan isaga iyo kooxdiisu. xaquudirirkan oo aaminsan inay yihiin difaaca islaamka waxa Yuhuuddu ay ka cabsi qabtaa inay si dhab ah ugu soo biiraan dagaalka. Haddaba waxa la isweydiinayaa haddii si dhab ah ay ku biiraan dagaalkani maxaa dhici kara. Warbixintan ayaan kugula wadaagi doonaa awoodda military ee kooxdani iyo hadalkii taariikhiga ahaa oo uu jeediyay hogaamiyahooda. Muuqaalkana sii faafi. Xisballah kooxdan militariga ah waxaa la aasaasay sanadkii 1982 markaasi oo koox dhalinyaro Shiica ah ay ku dhawaaqeen ururka. Waxa fikradan aasaaska ururka lahaa oo dadaal badan ku bixiyay in la dhiso dawladda Iiraan sida la aaminsan yahay. Waa koox diimeed aaminsan inay muhiim tahay sareynta sharciga islaamka ee dunida. Waxaana loo aasaasay difaaca waddanka Lubnaan ee looga cabsi qabay Yuhuudda. Waqtigii aasaaska ururkan iyo xilligan hadda ah farqi weyn ayaa u dhaxeeya. Hogaamiyaha ururkan ninka lagu magacaabo Sayid Xasan 2 sano ka hor Oktoobar 2021 ayaa waxa uu sheegay in 100,000 oo dagaalamayaal ah uu leeyahay ururkiisu. Waa xuduud ciidan oo ka badan inta ay haystaan wadamada qaar ee caalamka. Waxa uu yiri waxaan leenahay 25,000 oo dagaalamayaal gaar ah oo la hubo kuwaasoo si weyn loo carbiyay. Waana ciidan gaar ah oo dagaalami kara waqti aad u dheer taageero la'aan. Sidoo kale waxaa la aaminsan yahay diyaaradaha dagaal ee casriga ah kuwii ugu dambeeyay inay haystaan iyo gantaalo aan horey loo arag oo ay iyagu sameysteen iyo kuwa loo soo dusiyay ama ay iibsadeen. Waa dagaalyahano aad ugu xeel dheer baratanka dagaalka. Waa niman ay ka go'an tahay inay cirib tiraan cidda cadawgooda ah. Tan iyo markii la aasaasay waxaa la sheegaa inay cadawga koowaad ee Xisballah ay yihiin Yuhuudda. Laakiin waxaa jira dagaalo badan oo ay ka soo muuqdeen. Waxaa ka mid ahaa dagaalkii sokeeye ee waddanka Lubnaan ee socday in ka badan 15 sano. Inta uu socday dagaalkaasi ayaa la aasaasay kooxdani. Sidoo kale waxay la dagaalameen kooxaha argagixisada ah. Xaruntooda ugu weyn waa waddanka Lubnaan. Waxaana la sheegaa inay hadda yihiin xisbi ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee Lubnaan. Waliba midka ugu taageerada badan ee haysta aqlabiyadda iyo jihaynta waddanka Lubnaan. iyagoona dhinaca kale leh garab military oo aad u awood badan. Awoodda ciidan ee Xisballah waxaa lagu tilmaamaa inay tahay awood aan la dhayalsan karin oo wiiqi karta Yuhuudda. Waa mid ay hadda ka baqayaan inay wajahaan. Marar badan ayaa la soo wariyay isku dhacyo ciidanka Yuhuudda iyo dagaalyahanada kooxda Xisballah iyo weeraro oo ay ka qayb qaadatay, laakiin wali fagaaraha iskuguma iman iyaga oo kaliya. Dagaalkan hadda socda ayaa laga cabsi qabaa inay si toos ah ugu soo biirto kooxda Xisballah. Waxaase la dhowrayaa xilliga ay si dhab ah ugu dhawaaqi doonaan. Inkastoo haddaba ay gantaalo goosgoos ah ku weeraraan Yuhuudda intii uu socday dagaalkan bilowday 17 Oktoobar. Hogaamiyaha kooxdan oo maanta hadal taariikhi ah jeediyay markii ugu horeysay tan iyo xilligii uu bilowday dagaalkan. Waxa uu ka hadlay dagaaladii dhacay iyo sida uu ku bilowday. Waxa uu yiri 7 Oktoobar waxay ahayd maalin fasax u ah Yuhuudda. Dhammaan askartoodii ilaalinaysay xeyndaabka ay Gaza ku xireen waxay ahaayeen kuwa sarqaansan sidii ay u cabayeen khamriga. Taasina waa sababta loo doortay taariikhdaasi, ayuu yiri hogaamiyaha aadka loo sugayay hadalkiisa maantay. Waxa uu intaa raaciyay oo uu su'aalay aaway ciidankii ugu awoodda badnaa adduunka oo ay ku faani jireen inay leeyihiin. Aaway ciidankii cirka. Aaway hubkaagii tayada sare lahaa. Waxa uu kala jeeday intaasi ay ahayd taariikh qorantay oo ku noqon doonta barmadow Yuhuudda. Sidoo kale waxa uu ku soo gabagabeeyay khudbadiisa aadka u dheereed. Kooxda iyada si kasta waa u diyaar garowday iyo sida ugu macquulsan.
waxaa aad loo sugayay inuu iclaamiyo dagaalka kooxdiisa iyo in si dhab ah ay ugu biirto dagaalka, waxaase la siraynayaa inuu siyaasad kale ka leeyahay arrintani. Hogaamiyahan iyo kooxdiisa ayaa walwal badan ay ka qabaan reer galbeedka inuu dagaalkan ku biiro, maadaama ay yihiin awood aad u xooggan oo burburin karta Yuhuudda. Haddaba adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.